kumanaan kun oo dad ah kuwa uu ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa halkan soo xaadiray iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciyaarta ula daawanayay ciyaar adag oo u dhaxaysay degmooyinka shibis iyo degmada waaberi ee gobolka banaadir isjiidar kadib waxaa ciyaarta hal iyo eber guusha ku raacday kooxda degmada waaberi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo dhinacyadiisa ay taagan yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqum muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow wasiirka amniga qaranka mudane islaam ducaale iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaa goobta yimid una hambaliyey kooxda degmada waaberi magaceeda ku ciyaaraysa ee guulaysatay madaxweynaha soomaaliya oo dhammaan bilaba siiyey kooxaha kale heerka koowaad labaad ilaa saddexaad ee kala degmooyinka shibis waaberi iyo degmada hodan oo kaalin saddexaad gashay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo farxad ay ka muuqatay ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii soo abaabulay qabsoomidda koobka degmooyinka gobolka banaadir laguna qabtay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir caawa waxay noo tahay sharaf inaan kala soo qayb galno tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir oo caawa ku soo gabagaboobay waxaan aad iyo aad oo kale ugu faraxsanahay inay caawa koobka qaadatay degmada waaberi degmada shibis waa guulaysatay degmada hodan waa guulaysatay kulli degmooyinku waa guulaysteen maxaa yeelay waxay muujiyeen in magaalada muqdisho ay nabad tahay oo lagu cayaari karo runtii waxay u soo jiideen magaalada muqdisho inay tahay magaalo nabada magaalo fiican magaalo isdhexgal leh insha allah sanad soo socdana sidaan si ka fiican ilaahay ha nooga dhigo ibraahim xaaji yuusuf telefishinka tusmo magaalada muqdisho